ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga, golaha guddoomiyaasha gobollada Puntland, golaha maayarada ama guddoomiyaasha degmooyinka, bada saxaafadda, marti sharafta kale oo halka joogta, dhammaantood waxaan ku salaamay salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib, golaha guddoomiyaasha gobolladu maanta laga bilaabo waxaanu yeelnay guddoomiye ku-xigeen iyo xoghayn. awalba waan wada shaqayn jiray, xiriir badan baanu leenahay. waxaa laga yaabaa inuusan jirin nin guddoomiye ah oo anigu aanan wixin, waayo duruuf baa gelaysa. waxa aanu ka shaqaynayno baana sababaysa inaanu mar walba aanu wada xiriirro. waxaa weeye muslim baa jira, mid cashuur la fikaday baa jira, mid dembiilaa baa jira. waxay noqonaysaa hadba meesha la yidhaahdo gobolkaasuu galay ama degmadaasuu galay inaanu hala qabto. guddoomiyaasha degmooyinka badankood waanu waanu wada shaqaynaa, waanu wada xiriiraa. in badan baa waxaa dhici karta ama cashuur lagala soo fikaday ama dembiile gobolka bari ka soo galay oo aanu qabanay oo aanu u celinay ama cashuurta u qaadnay oo lacagtii ay meesha ugu yimaadeen. taa haddaan idhaahdo, golahani wuxuu wax ka bedelayaa wax badan. wuxuu ka bedelayaa sistemka wasaaraddu ay lahayd. micnihii waxaanu rabnaa inaan u heelino qaab dhismeedka wasaaradda, wasiirka, wasiir ku-xigeenka, agaasimaha guud, agaasimayaasha waaxyaha. wasaaraddu ay noqoto wasaarad isku tashata oo dhan walba ka shaqaysa. waxaanu ballan qaadaynaa inaanu guddoomiyaha iyo ku-xigeenka iyo xogeynta aanu la shaqayno guddoomiyaasha kale. annagaana codka siinay. wuxuu noqon doonaa gole jira oo had iyo jeer kala warqaata. taa haddaan idhaahdo, shalayto mudanayaal guddoomiyaal degmo iyo gobol waxaynu ballan qaadnay inaynu dadkeena u shaqayno xilliga murugsan ee mugdiga ee abaaraha ay jiraan iyo colaaddu. waxaan filayaa colaad baahsan baa ka jirta Puntland, min bari ilaa iyo bogox. dhan ay colaaddu ina ka jirin ma jirto, iyo abaar caamiye ah. tii aynu shalay ka wada hadla waxay ahayd abaarta mas-uuliyaddeedii ay lahayd guud ahaan wasaaradda arrimaha gudaha la saaray. maaha wasiirka, wasiir ku-xigeenka maaha, waa guddoomiyaasha gobollada iyo degmooyinka. in ummadda wixii laynooku dhiibo ama wixii tala ah ee cidi ay waxayso, cid iska wax qaybin kartaa ma jirto, cidina baal mari kartaana ma jirto. wixii innagaa aqoon garaynayna waxaan leenahay meel heblo waxgey, halkaasaa biyo looga baahanya, halkaasaa raashin looga baahanya. innagu mas-uuliyadda ilaahay inagu waynu kula xisaabtamayaa, dowladduna waynu kula xisaabtamaynaa, waynu kula xisaabtamaysaa. dadkeenna baahanna waxa weeye waa waynu kula xisaabtami doonaa si aynu u baalkeenno. waxaan jeclahay ka wasaarad ahaan inaynu maca wasiir ilaa biyetooni wasaaradda arrimaha gudaha, dowladaha hoose iyo horumarinta reer miyigu inaynu isku tashanno oo dadkeena wax u qabanno. mas-uuliyadda innagaa leh, ma aha wasaarad kale ma leh. wasaaradaha kale waxa weeye waa guddiyaday ku jiraan, waa inayna kala shaqaynayaan. waxaan mar labaad idinku booriyayaa mas-uuliyaddii aynu shalay wasiirka hortiisa iyo wasaaradda oo dhan aynu ka ballan qaadnay in aynu fulino oo qoraalka iyo arrimaha cad lahayd. taasaynu ku dhaqmaynaa, qoraalkaaynu haynay, mid kalena ku dhaqmi mayno. haddii laha yidhaahdona iyadaynu fulinayna in aynu mas-uuliyaddeenna qaadano, goob walba tagno, dadka say u kala dhib badan yihiin ama u kala jilicsan yihiinna aynu baalkeenno. intaa haddaan idhaahdo, waxaan si gaara ugu mahad celinayaa guddoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Faraweyne oo qadadan iyo martigelintan inoo sameeyey, oo halka isugu keenay dhammaanteen. fikirada in la dhiso golaha rag badan baa lahaa. anigu waxaan islahaa guddoomiyihii waxaad ahayd gobolka bari oo ugu ballaaran dhaqaalo guddoomiye. arrintaa waa waaye, waa ku dhacay. waxaan u hibeeyey saaxiibkay Cumar Cabdullaahi Faraweyne. waadna aragtaan baashan sida Puntland ku dhisan tahay baanu ku dhisanay golahayada. waa gole jiri doona, waa gole hadda ka bacdi aynu adinku aada marti loogu noqon doontaan oo guryaha iyo xafiisyada aanu yeelan doono guddoomiyaasha gobolladu
intaad maxaa tiina boor ka jafaysaa waa nala isticmaali doontaan haddii ilaahay yidhaahdo intaasaan allah cumar waxaan leeyahay mar kale aad iyo aad baa u mahadsantahay guddoomiye waxaanu kaaga mahad celinaynaa anoo ku hadlaya magaca guddoomiyaasha gobollada iyo guddoomiyaasha degmada qadadan aada noo samaysay oo halkaas ugu kaaga keentay aad baanu kaaga mahad celinaynaa qadaduna way noo furantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu